safiirka u fadhiya Soomaalida wadankani Koonfur Afrika ayaa waraaqiisa aqoonsiga guddoonsiiyay madaxweynaha wadankani Koonfur Afrika Jacob Zuma. Haddaba qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkani ayaa soo dhaweeyay. Waxaynu la dhaxmarnay mikrofoonka Somsa TV. anoo magacayga Cabbaas Aadan Xasan mayba eedanka faraxsana safiirka Soomaalida oo South Africa iyo eedanka faraxsana maadaama dhalinyarada oo Soomaali oo sharci la'aan iyo dhibaato badan inta ka hayti hadda naftigaana siin la doowaana dhibaato iyo sharci la'aan eednin hayta hadda eedanka faraxsana safiirka Soomaaliya haninka diri South Africa eedanka mahad celiyay. Assalaamu calaykum. aad baad u mahadsantahay. wax dhibaato ah oo aad ka tabanaysa ama aad safiirka u gudbinayso miyay jirtaa? dhibaatooyinka aan gudbiyo mayba aan hadda adkii la doow aragaas oo waraysan oo qaadasan sharci la'aan hadda wadanka dareera sharciga markii aan homa faariska aan saadina 2500 shaqo la yari oo hadda hal beri oo dheesanay halkii beri oo dheesanay hadda 2500 shaqo la yari 2500 meel aan ku sheeno male ma shaqeeyahay wala aan haaya male koodin inta ka qaldanay hadda laan qorqobaday meelan saasa kooni safiirka horta yani waa ku faraxsanahay maadaama yani wadanka wax badan aan joognay oo aanan haysan safiir oo yani noo doodo annagana yani wax ka qabto waxyaabaha dhibkeena oo yani markii yani wadanka aan dhago badan aan ku kulanay oo yani aan oo naga qabsaday maadaama yani hadda yani asagana la aqoonsaday waxaan jecelnahay inaan gacmo furan kusoo dhaweyno annagoo yani jir ah oo yani dadka dhan u hadlaya Soomaalida joogta meesha ana u hadlaya dhammaantood. maxaa si khaas ah ugu diraysaa safiirka ama aad ka codsanaysaa? waxaan jeclaan lahaa yani dad badan ku dhibaataysan oo yani inay wadanka yani iska laabtaan jecel qaarkood yani kaysan yani wax sharci oo ay ku sii joogaan qaar wax sharci ma haystaan oo darbiyada taagan yihiin marka yani inuu dadkaas dhan u fududeeyo wixii yani uu tari kara maanta oo yani markaas uu qaban karo dadka inuu u qabto oo yani markaas gacan uu ka siiyo dadka Soomaalida oo ku dhibaataysan meeshan taas ayaan ka codsan lahaa aniga aad baan ugu faraxsanahay aragtideedana waxa weeyaan 100% waan soo dhaweynaynaa maadaama oo meesha ay dadku aad ugu rafaadsanaayeen loona baahnaa positionkaas waan soo dhaweynaynaa. waa tahay maxaad codsi ah oo u diraysaa safiirka? safiirka waxaan u dirayaa kulli isagoo ka warqabay xaaladaha meesha siday dadku ku haayeen marka in hawshiisa uu hore u galo waxyaabihii looga baahnaana uu dadka u sameeyo insha Allah. in badan oo dhalinyarada ka mid ah waxay ka cabanayaan sharci darrada wadanka ka jirta taa maxaad ku daraysaa? wallaahi waa la qabaa waxa weeyaan dawladda South Africa macnaha dadka anagana dee sharci la'aan baan meeshaan dhigtay moogtay in badan waanu joognay marka haddii dee sharci aan maanta helayna alxamdulillah niyow sharcigana haddii safiirka macnaha hawl uu fududeynayo oo laga helayo waa soo dhaweynaynaa aad baan ugu faraxsanahay in sharcina loo sameeyo. haddaan bulshada ku dhaqan South Africa aad baan u soo dhaweynaynaa safiirka cusub iyo dawladda noo dhalatay ilaahayna waxaan uga baryaynaa dawladda iyo safiirkaba labadaba kuwii dadka iyo dalkaba anfaca anaga especially South Africa aad baan ugu dhibanahay arrimaha safaaradda maxaa yeelay baasabooryo lagu safraayay ma laha saa wala socotaana wadankan xuquuqo fara badan oo Soomaalida lahayd baa ku lumsanaa in muddo ah alxamdulillah rabbil caalamiin maanta haddii la hayso safiir u doodo dadka oo lagala tashan karo wixii Soomaalida iyo dawladda u dhaxeeyo iyo cabashada meel loo gudbin karo marka waxaan ka codsanayaa safiirka inuu sharciyada meesha ugu horeyso uu dhaqan gelinayo inay noqoto sharciyada insha Allah. aad baan u soo dhaweynaynaa horta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu safiirku waan salaameynaa safiirka ummadda Soomaaliyeed si weyn baan u soo dhaweynaynaa inkastoo dhibaato badan uga hayso xagga sharciga iyo faariska haddaan tagnana waxay nagu oranayaan 2500 ma heli karayno safiirku waxaan ka codsanaynaa si dhaqsiyaha badan inuu soo dedejiyo sharciyo aan nagula aqoonsado. waa markii ugu horeysay ee safaarad Soomaaliya ay leedahay laga furo wadankani Koonfur Afrika in badan oo dadka kamidana ay aad u soo dhaweeyeen. Maxamed Axmed Siyaad, Somsa TV, Koonfur Afrika.